waa shir baadiye weeye beelaha Puntland dega oo meesha la yiraahdo Garowe Boosaaso iyo meelo kale baa tegaya oo danahooda kaga hadlaya aniga ila tahay laakiin dadkan qaatumo maamulka qaatumo weeye waa reer qaatumana waa shir gaalkacay lagu qabanayo oo Garowe maamulka jooga uu qabsanayo wax dani uguma jirto isku soo wada duub oo dadka dhaqanka ee garaadada uqaasha iyo waxgaradka beelaha waxaan u sheegaynaa inay ka qayb galin cidii ka qayb gashaa waa baadi wax xurmo ah kuma leh maamulka qaatumo biri iyo maanta midna xurmo kuma leh cidina ay iska aadin beeluhu alla xisaabtameen dadka dhaqanka oo garaadadooda iyo suldaamadooda iyo ugaasiyadooda iyo uqaashooda iyo odayaashooda waxgaradkooda alla xisaabtameen yaan dadka baadida ee magaca dhulka la wareegaya lama aqbali karayo xurmo kama helaysaan maamulka qaatumo anagu waa ognahay cid kasta oo ka qayb gasha shir baadiya oo meelaha lagu qabto ama gaalkacay ha noqoto ama Garowe ha noqoto ama somewhere else ha noqoto wax xurmo ay ka helaysaa maamulka qaatumo ma jirto qaatumo wiil yar eeday gaboobay nin kale oo imaan xun midna waxba uma dhimi karayo meeshuu raba ha tago laakiin maamulkii qaatumo halkan shir dareedkiisi hawlihiisi danihiisa gaarka ah madaxweynihii baa jooga ku-xigeenkii baa jooga baarlamaankii iyo gudoomiyayaashiisi baa jooga hadii la kula nin garboodkii oo dhan baa jooga ismadii oo dhan baa imaanaya cid ka maqani ma jiro qurba joogtii baa joogta ganacsatadii baa joogta culimadii baa cid maqani ma jiro